Assalaamu calaykum asxaabta. Ku soo dhawaada channelka Aragtida Maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharixi doonaa filim lagu magacaabo Killing on Wheels. Filimkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay dad naafa ah, kuwaas oo ah dilayaal khatar ah. Filimka ayaa waxa uu ka sheekeynayaa sheekada nin naafa ah oo lagu magacaabo Rubisof, kaas oo gacan ku dhiigle ah aadna looga cabsado, iyo sidoo kale nin dhalinyaro ah oo isna lagu magacaabo Zoli. Labadooduna waa dad naafa ah. Rubisof waxa uu kursiga curyaanka ku fadhiyay 3 sano ee lasoo dhaafay, halka Zoli uu ku dhashay naafanimada. Zoli waxa uu ku nool yahay guriga wiil ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Adam. Waqtigiisa firaaqada, Zoli waxa uu jecel yahay in uu wax sawiro. Maalin maalmaha ka mid ah, Zoli iyo Adam waxa ay ku ciyaareen haanta dabdamiska oo taallay luuq yar oo u dhow qolkooda. Kadib waxa uu yimid Rubisof, kaas oo u muuqday mid ka xanaaqsan dhaqankooda, waxa uuna dhirbaaxay Zoli. Laakiin Rubisof ayaa si lama filaan ah u ogaaday in uu aad ugu fududaaday Zoli iyo Adam. Intaas kadib waa uu raali geliyay, waxa uuna ku casuumay in ay yimaadaan xafladiisa. Zoli iyo Adam ayaa u muuqday kuwo ku raaxaysanaya xafladda. Rubisof ayaa Zoli iyo Adam u soo jeediyay in ay qabtaan shaqooyin cusub oo burcadnimo ah, waxa uuna u ballan qaaday in ay nolosha ku raaxaysan doonaan. Dhowr maalmood kadib, Zoli ayaa tagay isbitaalka si uu qalliin u galo, laakiin Zoli ayaa diiday in uu qalliinka galo kadib markii uu ogaaday in lacagta qalliinka uu bixinayo aabihiis, kaas oo ka tagay dhalashadiisii kadib markii uu ogaaday in uu u dhashay cunug naafa ahi. Dhanka kale, Rubisof ayaa waxaa mission u diray booskiisa, waxa uuna ku sugayay bartilmaameedka meel baakin ah oo cidlo ah. Baabuur ayaa yimid oo ag istaagay Rubisof. Dhowr nin ayaa gaarigii ka soo degtay oo u soo dhawaaday Rubisof. Mid ka mid ah ayaa ugu hanjabay Rubisof mindi, waxa uuna kaga muday bowdada, laakiin waxa uu u muuqday mid caadi ah. Rubisof ayaa sheegay inuusan waxba ka dareemin lugihiisa tan iyo markii uu ku fadhiistay kursiga curyaamiinta, taas oo nimankii ka sii cadhaysiisay. Mid ka mid ah ayaa hanraati ku dhuftay Rubisof, dabadeedna intuu qufacay ayuu bac jeebka kala soo baxay, waxaana ugu jiray qori, isaga oo mid mid u toogtay nimankii tuugada ahaa ilaa ay dhammaantood ka dhinteen. Kadib markii Rubisof uu ku guuleystay in uu dilo tuugada, ambalaas ayaa soo gaartay goobta. Bar lagu magacaabo Sita ayaa ka daaweysay Rubisof nabarkii ka soo gaaray bowdada, waxa ayna isbarteen gabadhii. Rubisof waxa uu qaaday dareen gabadhii, waxa uuna weydiiyay shaqada kadib in uu u wado shaqeymada, laakiin Sita waa ay diiday casuumadiisa, waxayna u sheegtay in ay saaxiib leedahay. Rubisof ayaa aad uga xumaaday in gabadhii uu jacaylka u qaaday ay saaxiib leedahay, waxa uuna isku dayay inuu is dilo isagoo iska soo tuuray jaranjarada buundada, laakiin qadarku uma ogolaanin inuu adduunka ka tago. Rubisof ayaa lacag ka helay booskiisa, waxa uuna u sheegay in shaqadooda ay sir tahay, uusan cid kalena la wadaagin. Balse Rubisof waxaa inta badan caawinayay Zoli iyo Adam. Dhowr maalmood kadib, Rubisof ayaa la kulmay Zoli intii uu ku jiray jimicsiga isbitaalka. Rubisof ayaa Zoli u sheegay in uusan mar dambe caawin uga baahnayn oo uu joojiyay shaqadoodii, laakiin Zoli waa uu diiday, waxa uuna sheegay in uu weli la shaqayn doono. Kadib markii uu dhameeyay jimicsiga, Rubisof ayaa ku sigayay Sita isbitaalka hortiisa, waxa uuna rabay inuu hadiyad u siiyo ubax qurux badan, laakiin waa uu niyad jabay kadib markuu arkay Sita oo saaxiibkeed la joogta. Intaas kadib, Rubisof waxa uu helay shaqo ah inuu soo diro sarkaal. Waxa uu dejiyay qorshihii uu ku dili lahaa mas'uulkan inta uu ka qadaynaya maqaayad ku taalla dhinaca weyn ee wadada. Rubisof ayaa ku sugayay dhanka kale ee wadada, halka Zoli iyo Adam ay xaaladda kor ka ilaalinayeen si ay uga fududaato inuu falkiisa fuliyo. Rubisof ayaa ku guuleystay inuu hawshiisa qabsado isaga oo dadka tuhun gelin. Mas'uulka ayaa isagoo wadada ka gudbaya waxaa si lama filaan ah xabad ugu dhuftay Rubisof, waxaana jirkiisa buux dhaafiyay dhiig. Ilaaladiis waxay ku mashquulsanaayeen raadinta ninka toogashada geystay, balse ma jirto cid ka shakiday 3 nin oo naafa ah oo ku socda kursiga curyaamiinta. Saddexdoodii ayaa isla markiiba goobta isaga tegay. Markan, Rubisof ayaa waxa uu la kulmay Sita isaga oo baska raacaya, waxa ayna siisay kaarka ka soo qaybgalka xafladda arooskeeda. Laakiin si aan la ogeyn, Rubisof booskiisa ayaa daawanayay ficilkiisa. Kadib markii ay kulmeen ayuu booskiisa aad uga cadhooday in uu jabiyay xeerkii u yaalay, isaga oo hanraanti ku dhuftay ilaa uu dhulka ku dhacay. Waxa uuna siiyay hal fursad oo uu ku saxo khaladkiisa. Markan, Rubisof waxaa loo diray howlgal ah in uu dilo saaxiibadii Zoli iyo Adam. Maalintii xigtay, Rubisof waxa uu kaxaystay labadiisii saaxiib si ay u soo kalluumaystaan. Saddexdoodii ayaa ugu dambeyntii soo gaaray haradii ay ka kalluumaysan lahaayeen.
Adam waxa uu muuqday mid aad u faraxsan kadib markii maqaalintiisu uu soo galay Malay halkii uu Rubisof caawin lahaa saaxiibkiis Adam waxa uu ku tuuray haradii. Intaas kadib Rubisof ayaa haddana mar kale suuli ku tuuray biyaha waxa uuna damcay in uu toogto, laakiin Rubisof ayaa u adkeysan waayay in saaxiibadiis uu sidaas uga tago. Ugu dambeyntii waxa uu galay haradii si uu u badbaadiyay saaxiibadiis Suuli iyo Adam. Kadib markii ay dhammaantood ku soo laabteen guriga, Rubisof ayaa saxaabtiisa u sheegay in ay ahayd prank. Rubisof ayaa markiisii ugu horeysay ku guuldareystay inuu dhammaystiro howlgalkii loo diray. Kadib markii ay ka soo laabteen harada, Rubisof ayaa waxa uu asxaabtiisa ku marti qaaday in ay ka soo qayb galaan xaflad uu ku qabsanayay gurigiisa. Intaas kadib waxa uu sheegay in Sita uu jecel yahay. Saaxiibadii Rubisof waxay rabeen inay ka caawiyaan in uu dib u helo Sita, waxa ayna dejiyeen qorshayaal. Maalintii xigtay, 3 ka mid ah saaxiibada Rubisof ayaa ku istaajiyay baabuur, iyagoo u sheegay in istaagi karo oo uusan u baahnayn inuu isticmaalo kursiga curyaaminta. Rubisof waxa uu sugayay Sita ilaa ay ka soo baxday isbitaalka, laakiin markuu saacado sugayay, waxa uu ogaaday in Sita ay maanta fasax tahay oo aysan shaqada imaanin. Sidaas ayuuna qorshahoodii ku fashilmay. Dhowr maalmood kadib, Rubisof waxa uu soo baxday hawlgal uga yimid booskiisa si uu u dilo nin ganacsade ah oo daroogada iibiya. Booska ayaa u sheegay in la siin doono labanlaab lacagtii uu qaadan jiray. Rubisof waxa uu aqbalay shaqada, balse waxa uu shuruud uga dhigay in shaqadani ay tahay tii ugu dambeysay uusan mar dambena aqbali doonin in uu wax shaqo ah u qabto, waana laga aqbalay. Rubisof iyo labadii saaxiibadiis ahaa waxay aadeen gurigii ganacsadaha. Suuli iyo Adam ayaa gaariga ku dhex sugaya Rubisof inta uu kasoo fulinayo howlgalkiisa. Ilaalada ayaa baaray Rubisof ka hor inta uu gudaha u galin guriga, inkastoo aysan ka helin wax ay ka shakiyaan sida qori ama bistoolad. Ugu dambeyntii waa ay fasaxeen, waxayna u kaxeeyeen guriga gudihiisa si uu ula kulmo ninka ganacsada ahaa. Kolkii uu guriga gudaha u galay ee uu la kulmay ninkii daroogada ka ganacsanayay, waxa uu la soo baxay qori lagu soo qariyay barkimada hoosteeda ee kursiga curyaaminta. Waxa uuna rasaas ku furay ilaaladii guriga ku sugnaa, balse waxa uu sheegay bartilmaameedkiisii. Halkii uu ka carari lahaa, ganacsadaha ayaa qaatay qorigii oo waxa uu rasaas ku furay Rubisof. Laakiin Rubisof ayaa ah nin khibrad badan u leh hubka, sababtoo ah xirfadiisa oo aad u sareysa. Inkastoo jirkiisa uusan dhammaystirnayn, haddana waa nin khatar badan. Isaga oo jirkiisa uu ka buuxaan dhaawacyo, maryihiisuna dhiig leeyihiin, ayuu ugu dambeyntii ku guuleystay in uu wada dilo oo uu soo gabagabeeyo howlgalka loo igmaday. Kadibna uu ka cararo goobta. Waxa uu maqlay dhawaqa booliska markii uu soo gaaray albaabka. Waxa uu damcay inuu iska furo albaabka oo xidhnaa, balse uma suura gelin. Suuli iyo Adam oo gaariga saarnaa ayaa u muuqday inay argagaxsan yihiin. Suuli ayaa markaas qaaday tallaabo uu ku hor istaagayay gaariga booliska, halka Adam uu ka caawinayay Rubisof in uu ka baxsado guriga. Saddexdoodiina waxa u suurta gashay in ay baxsadaan. Taas kadib, Rubisof waxa uu la kulmay booskiisa si uu u qaato lacagtiisa sida caadada ahayd. Rubisof iyo booskiisa ayaa is soo raacay, waxa ayna yimaadeen goob faaruq ah. Rubisof waxa uu dareemay inay wax khaldan yihiin kadib markii uu arkay xariga daldalaada oo meel ka soo lushay. Waxa uu soo baxday in booskiisu uu ka warqabay inuu khiyaanay Rubisof, maadaama uu ogaaday in Rubisof ay weli nool yihiin saaxiibadiis oo uusan dilin. Booska oo arrinta aad uga carooday ayaa waxa uu si khasab ah qoortiisa u geliyay xarigii, kadibna ka baxsaday kursiga curyaanka oo uu ka tegay. Rubisof waxa uu si quus ah iskugu dayay in uu dabciyo xariga qoorta uga xiran, isaga oo ku haya suulasha kabaha si uu isaga ilaaliyo inay neeftu ku xiranto. Waxa uu damcay in uu tiigsado kursiga curyaaminta oo aan aad uga fogeyn, laakiin waa uu gaari waayay. Kadib markii uu ku dhawaaday inuu quusto, ayaa ugu dambeyntii xarigii yara dabcay. Madaxiisa ayuu ka saaray xarigii, sidaas ayuuna ku badbaaday. Markii uu guriga yimid, Rubisof isla markiiba waxa uu isku keenay asxaabtiisa, isagoo qorsheynaya inuu ka arguto booskiisa. Dhowr maalmood kadib, Rubisof ayaa ka qayb galay arooskii Sita oo ay weheliyaan Suuli iyo Adam. Waxa uu soo labistay sida qof caadi ah, isagoo gashan jaakad cad, timahana si fiican u soo habaystay. Rubisof ayaa sidoo kale soo bandhigay xirfadiisa faneed, isagoo heesa ka qaaday xafladda, taas oo ay la dhaceen dad badan oo ay ka mid tahay Sita. Intaas kadib, Rubisof ayaa sameeyay arrin lama filaan ah, isaga oo shumiyay Sita. Ninkeeda ayaana aad uga maseeray arrintaas. Kadib markii xafladdu ay dhammaatay, Sita ninkeeda iyo asxaabtiisa waxa ay garaaceen Rubisof, iyagoo ka carooday wuxuu ku sameeyay aroosadda. Rubisof ayaa soo gaaray goobtii, isagoo dadkii ugu hanjabay in uu layn doono. Intaa kadib waxa uu ka qaaday saaxiibkeed Rubisof goobtii uu yaalay. Maalmihii xigay, Rubisof waxa uu bilaabay in uu ka arguto ninkii booskiisa ahaa,
isaga iyo Suuli waxay booqdeen guriga booskiisa si bareer ah ayayna u soo galeen halka Aadan uu dibadda ku sugayay laakiin booska ayaa ka gaabsaday inuu bixiyo lacagtaas waxa uuna ugu hanjabay inuu ku diri doono eeyihiisa. Ubisoft ayaa booskiisa u sheegay in uu doonayo inuu ka qaato lacagtiisii oo uu ku lahaa si ay u weeraraan labadoodaba. Ubisoft ayaa markaas la soo baxay qorigiisa oo uu horey ugu ritay haanta dabdamiska oo miiska kor saarnayd. Eeyihi ayaana sidaas ku kala cararay. Booski ayaa bilaabay in uu weeraro ilaa uu qorigii ka dhacay isaga oo mindi ku dhiftay Ubisoft. Suuli ayaa isku dayay inuu qaato qoriga Ubisoft. Suuli ayaana dilay booskii. Ugu dambeyntii waxa ay soo qaateen dhammaan wixii lacagkeed ahaa isagoo u isticmaali doona qaliinka looga sameynayo lugaha. Waxaa soo afjarmay sheekadii ay ku saabsanayd dilaagii kursiga curyaanka ku fadhiyay. Sheekadan ayaa waxaa qoray Suuli sidoo kalena waxaa qayb ka ahaa Ubisoft iyo Aadam. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.